Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada kanaalkeena loo yaqaano kobci software alaab ka barateen ee culumta kala duwan ee cashirkan wuxuu noqonayaa cashirkeenii part 3ga ee spaceska programka. Waxaanu kasii ambaqaadi doonaa intii cashirkii hore part 2 halkuu nagu joogay baan kasii ambaqaadi doonaa dhinaca programka nu leexano. Kadib markii aanu buuxinay 8 su'aalood ee nagu qoran questionnaire-ka, waxa ku xigi doona in ay aanu qaybino dadkii questionnaire-ka kadib ay nooga soo jawaabaan jawaabihii su'aalihii aanu qaybinay questionnaire-ka aanu qaybinay. Markay nooga soo jawaabaan qaabkii loo gelin lahaa SPSS-ka ayuu cashirkani ku saabsan yahay. Waxaad tegaysaa si aad u gelisay questionnaire-ka jawaabahoodii data view halka hoose taabanaysaa. Data view waa 8 su'aal. Data view muxuu koobsanayaa oo columns ku koobsanayaa su'aalihii aad soo gelisay variable view-ga. Su'aalihii 8 su'aalood aanu soo gelinay ba halkan ka muujismaya. Asa column ahaan bay u muuqanayaan. Haddii kale haddaan gender-ka ku door qabto su'aashaasi maxay ka hadlaysaa? Maxaa soo baxaya? Waxa soo baxaya su'aashaasi wax ka kooban. Halkan waxa lagu gelinayaa intaan oo dhan waxa la gelinayaa jawaabihii respondents-ka dadka aad u qaybisay. Haddii su'aasha koowaad waxay ka hadlaysaa what is your gender? Su'aasha labaad waxay ka hadlaysaa what school are you studying in? Iskuulkee dhiganaysaa? Su'aashan waxay ka hadlaysaa how old are you? Waad ku dul qabanaysaa su'aal walba waxay ka hadlayso. Su'aal walba markay ka hadlayso aad fahantid waxa kuu sahlanaysa inaad questionnaire-kii aad gelgelisid. Kadib ka soo qaad questionnaire-kii uu noo soo celiyay 10 qof ayaan questionnaire-kii u qaybinay 10kii qof ayaa noo soo jawaabay. Maxaa dhacay? Maxaa noqonaysa inaad gelgelisid? Marka ka soo qaad su'aasheena koowaad waxay ku saabsanay gender-ka. Waa maxay gender-ka? Gender-kaagu waa maxay? Male ba mise waa female? Ka soo qaad qofkii koowaad wuxuu tigarayay male buu tigarayay. Wuxuu waa male. Maxaa samaynaysaa? Male-ka markii aan coding-ka sameeyay maxaanu siinay? Number 1 baanu siinay. Number 1 baad gelin kartaa. Maadaama aan gender-ka number 1 siinay gender-ka waxaanu male haddaan number 1 siinay number 1 baad gelinaysaa. Ka soo qaad qofkaasi su'aasha intaas naga jawaabay. Su'aasha labaad wuxuu kaga jawaabay health. Waxa iskuulkee maxaad dhigataa? Wuxuu yiri waxaan dhigtaa caafimaadka. Caafimaadku muxuu taagan yahay number 2. Maxaan soo geliyay? Iskuulka waxaan gelinayaa number 2 maadaama uu caafimaadka number 2 aan soo geliyay markaan coding-kii ka hadlayay. Cashirkeenii hore la soco. Coding-ka markaan hadlayay maxaan sameeyay? Number 2 baan soo geliyay coding-ka. All-ka maxaan ka hadlayay? All-ka waxaan u kala qaybiyay su'aashana saddexaad intaas u kala qaybiyay. Ka soo qaad ninkaas wuxuu nooga soo jawaabay inuu yahay 30 ilaa 40 qofka u dhaxeeya. Marka 1 iyo 2 iyo 3. Coding-ka maxaanu siinay? Number 3 baanu siinay. Qofkii su'aasha ku soo jawaabay number 3 baanu siinay. Xagga week-ka shaqada maxaad ku timi? Shaqada waxaad ku su'aashana afraad waxay ka hadlaysaa how did you get shaqada maxaad ku timi? Meesha soo lugaysa magaas. Ka soo qaad wuxuu ku soo jawaabay aan casay halka wuxuu ku soo jawaabay ka soo qaad wuxuu tigarayay bas. Baska muxuu taagan yahay? Basku wuxuu taagan yahay number 3. Number 3 baa gelinaya maadaama uu bas yahay. Waxa lagu yiri computer ma haysataa mise ma haysatid? Su'aashan waxay ku jawaabaysaa do you own a home computer? Ka soo qaad ninkaas wuxuu ku jawaabay ninkaas oo kale aan dul tago waxaan computer ma haysto. Wuxuu yiri ka soo qaad computer baan haystaa. Computer-ka desktop computer ma ku yaalaa? Number 1. Yes maxaan siiyay number 1. Su'aashan kale waxay ka hadlaysaa su'aasheena statistics-ka ma taqaanaa software la taxalluqa. Su'aasheena 7 aan dul tago do you rate your ability programka statistics-ka loo ma taqaanaa? Ka soo qaad ninkaas wuxuu yiri strongly agree anuu si fiican baan u aqaanaa. Si fiican strongly agree-na maxaan siiyay? Number 1 baan siiyay. Strongly agree number 1 baan siiyay. Xagga price-ka ninkaas ka soo qaad wuxuu ka jawaabay ka soo qaad price-ka computer-ada lagu iibiyo Hargeysa price-koodu ma expensive ah? Marka wuxuu ka soo qaad wuxuu yiri waa expensive. Number 2 expensive maxaan gelin? Number 2. Su'aashana u dambaysa ninkaas ku soo jawaabay wuxuu yiri I like use computer-ka ma jeceshahay markaad isticmaalaysid. Ka soo qaad ninkaas wuxuu ku jawaabay neutral. Waa ka soo qaad mid walba exception la sameynaya inuu su'aasha ku jawaabay ma ka soo qaadaya.
marka neutral maxaan siiyey number 1 marka maxaan geliyey xaggaan ka geli lahaa magacii mid walba magaciisa maxaan geliyey cowning waxa ii fudud mid walba numberkii aan siiyey waana xifdisanahay oo hadeer neutral waxaan siiyey number 2 barayskii oo kale expensive waxaan siiyey number 2 staticskii number 1 baan siiyey haddii aan fahmi waayo wixii aan xasuusan waayo maxaan sameynayaa programka SPSS ku si fiican buu kaaga caawiyaa arrintaa waxaad tegaysaa wax kale ma tegaysid view baad tegaysaa waxaad tegaysaa value level muxuu sameynayaa wixii ku dhex qarsoonaa codingkii ku dhex qarsoonaa buu soo saaraya markii hore number 1 iyo number 2 iyo halkaan ku qorqonayay number 1 muxuu taagnaa women number 2 muxuu taagnaa health number 3 mid kasta wuu soo saaray su-aashii waxay u taagnayd marka sidaa fudud baad ku ogaanaysaa view baad tegaysaa view level baad ku dhifanaysaa marka maxaa kusoo baxaya number 1 kan number 2 gan wuxuu taagan yahay marka kasoo qaad ninkii koowaad saas ku jawaabay kasoo qaad ninkii labaad qofkii labaad questionnaire-ka u qaybiyo wuxuu kusoo jawaabay wax kale si kalena waad u gelin kartaa waxaad samaynaysaa halkaa yar koonkaad laba klik siinay waxaa kuusoo baxaya labadii jawaabood kasoo qaad qofkii labaad questionnaire-ka waxaa female kasoo qaad wuxuu dhigtaa social care buu dhigtaa kasoo qaad da-deeda waxaad kasoo qaadaaba 25 kasoo qaad wax ku timaadaa shaqada train bay ku timaadaaba computerka si fiican uma fiicna computerka ka programme statistics-kana wax laga yaabaa inay disagree ku wanaagsaneyn inay programka loo yaqaano price-ka kuwa computer lagu iibiyey tiri waa cheap marka jawaabihii mid walba jawaabahoodii saasad u gelgelinaysa qofkii saddexaad kasoo qaad waa wiil wuxuu dhigtaa sports school ka shaqeeyaa kasoo qaad da-diisu waa 41 ilaa 50 kasoo qaad tareen bas buu kusoo raacaa markaa waa jawaabihii halkan aad ku buuxbuuxinaysaa mid kasta marka jawaabihii markaas ugu buuxbuuxisid muxuu SPSS ku sameynayaa inuu analyze gareeyo su-aalaha jawaabaha marka qofkii afraad baan u gudbayaa ilaa aan dhammaynayo aan ka gaadhayo dadkii oo dhan marka saasaan ugu jawaabayaa mid kasta marka waxaan kasoo qaadayaa inuu analyze gareynayo ilaa 10 qof aan ku buuxinayaa 10 qof haddaan ku buuxiyo 10 mid baan analyze gareynayaa baan ku xijinayaa post baan siinaya videoga saan ugu dheeraan anaa buuxinaya marka qof walba wax looga baahan yahay inuu qaabka buuxiyo marka post baan siinaya saan videoga ugu dheeraan markii aan SPSS-kii 10kii qof su-aalahoodii kasoo qaaday waxaasoo intaasoo dhan bay igu jawaabeen 10kaa shay 10kaa qof marka maxaad ku qanaysaa inay 10 su-aalo qof yihiin halkan kuu tirinaya inta qof ay yihiin ilaa 10 marka 10kaa qof maxaan sameynayaa 10kaa qof inaan analyze gareeyo markaan analyze gareynayo cashirka ku xiga ayaa wuxuu noqonayaa qaabkii loo analyze gareyn lahaa 10kaa qof daatadoodii marka casharada ku xiga waxaan isticmaalanaa programmada kale ku xiga Word-ka iyo waan isticmaalanaa Excel labada program iyo SPSS-ka saddexdaasaan isticmaalanaa anagoo analyze gareynaa 10ka qof haddii 10ka qof waa daatadoodu waa data information weli maaha laguma go-aan qaadan karo marka waxaan u bedelanaa into information marka casharada ku xiga waxaa noqonayaa qaabkii loogu bedeli lahaa into information datana aan halkan gelinay asxaabay ha moogaanina like share subscribe والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.